Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Somali Motivation Podcast. Waxaa idinla socodsiiya anigoo ah Istaahil Cabdiraxmaan Caydiid. Barnaamijkeena maanta dhiirigelinaya waxaan kusoo qaadanaynaa waa maxay sababta ilmaha iskuulka oo u naco amba uga niyad jabo. Si kala hadii loo dhigo, ilmuhu iskuulka muxuu uga saaqidaa. Marka hore waxaynu qaybinaynaa laba qaybood oo ah sababta ama laba sababood oo ah sababaha keena ilmuhu iskuulka inuu naco, ka caajiso amba in uu ka saaqido. Waa mid qodobka koobaad waa mid ku xidhan deegaanka, guriga iyo iskuulka. Labada ku doona ahaado deegaanka ilmaha ku xeeran. Qodobka labaad ayaa ah mid maskaxdiisa amba awoodiisa maskaxeed ee waxbarashada uu wax ku baran lahaa marka koobaad ba ka imanaysa, sida hadii uu ilmuhu xanuunada maskaxda amba xanuunada ilmaha ka hor istaagay inuu wax akhriyo amba wax qoro. Tusaale ahaan ilmuhu haduu dyslexia leeyahay oo ah mid saameyn weyn ku leh akhriska, inuu ilmuhu waxa hor yaalo uu akhriyo iyo waxyaabaha kale xagga dambe ka sheegi doono. Marka labada hadii aynu qaybino, waxaan ku bilaabayaa qodobka koobaad ee uu keenayo deegaanku oo ah guriga iyo ilmaha. Ilmaha waxyaabo aad u fara badan ayaa isagoo maskax ahaan jir ahaanba caafimaad qaba saameeya keenana in iskuulka naco amba uu meeshii laga rabay uu ka soo bixi waayo. Guriga marka uu joogo ilmuhu, hadii casharkii ku adkaa loo marin waayo amba in meel wax ku akhrista aanu haysanin, taa micnaheedu maaha in ilmo kasta aan leeyahay wuxuu awoodaa kursi iyo miis in meel loo dhigo oo amba qol gaara la siiyo. Laakiin hadba sidii uu qofka guriga ilmaha mas'uulka ka ahi uu ilmaha ugu dhiirigelin karo inuu wax akhriyo amba waqti ha siiyo amba fiidiyowga ha ka baktiyo amba hadii uu awoodo casharka ka caawiyo amba casharkiisa ha weydiiyo waxa yidhaha maanta maxaa soo dhigatay, sideeba casharkaagu ahaa, maxaa kugu adag, imtixaan baad leeday, beri imtixaan baad leeday, hore u seexo, u kac, uu maalinta si fiican u quraaciyo amba uu caawiyo. Waxay keenaysaa ilmaha in la aqoonsan yahay dhibaatada iskuulka ka haysata, casharku haduu ku adag yahay, hadii loo caawinayo, hadii cid kale oo caawisa aad ugu yeeriso, hadii aanad intaba awoodin laakiin aad muujinayso inaad maqlayso, arkayso, la socoto. Marka ilmaha in meel wax ku akhristo la siiyo amba uu laga warhayo waxay keenaysaa caawimaad fara badan. Hadii uu waayana waxay ku keenaysaa dib u dhicid inuu akhriskii naco oo diyaar garowgii meesha uu ka baxo. Waxyaabaha kale ee ilmaha saameynta ku leh guriga laga caawin karo saan waxbarashada u nicin waxa kamid ah in ilmaha kalsoonidiisa la dhiso. Oo maanta hadii intuu fasalka markuu joogay farta taagay deetana wax khalad uu sameeyo lagu qoslay amba uu su'aashi khalad uga jawaabay amba uu casharkii garan waayay amba uu karto qof kale uu ku qoslay, waxyaabaha ka dhaca fasalka ee aadka aan micnaha badan sameynayn ilmaha micno fara badan bay isagoo u sameynayaan, waxa dhiciba karta in iskuulkiiba ku naco. Marka kalsoonida ilmaha inaad dhisto waxay noqonaysaa mid muhiim ah. Hadii aad ilmihii wareysato oo maanta markii lagu qoslo iska caadi, ardayda way ku dhacdaa, adiga in lagu qoslo micno ma sameynso, way fariid baa tahay, ma sidaas aad tiri sax baa sheegtay. Kalsoonida ilmaha inaad dhisto hadba adigu sidii aad u arkayso, inaad waqti ilmaha siiso aad la ciyaarto, maadaama maanta dhan iskuulkii joogay waxa laga yaabaa inaanu ciyaarinba wixii doonabaha keenaan. Marka inaad gurigii markuu joogo aad la ciyaarto. Arinta kale aadka u xun oo caruurta iskuulka nacsisa iyagoo dhanna dhibaato fara badan ku keento guriga iyo noloshooda dhanba saameysa waa bullying-ka. Waxaa la yidhaahdaa in ilmihii lagu dhibo iskuulka oo caruurta kale ay ku dhibaan. Midba ku adag yahay wuu muquuriyaa sida inaguba aynu ognahay. Laakiin gaar ahaan ilmaha qurbaha jooga, waxyaabahan ilmihii wadankii joogay lagu muquurinahayn amba aan lagu dhibahayn amba aan caruurta kale ku karbaashahayn baa lagu karbaashaa, sida midabkiisa, timihiisa, xijaabku ilmuhu xidhan yahay, maxaan ku dhahdaa qaabka uu labisan yahay iyo miisaanka oo ilmuhu haduu yara buuran yahay aad moodo macna aad iyo aad ay caruurta kale ugu dhibaan. Ilmaha wadankii hooyo jooga waxa laga yaabaa leena buurano ballaaran noocaas, laakiin aanay muhiimad fara badan lahayn oo marka ilmuhu intuu ka xanaaqo dhagax turtuura ama la istiro
laakiin aanay bullying lagu wada qoslayo oo buurnaantii sidii halkan oo kale uga xun tahay aanay halkii wadanka uga xumeyn baa laga yaabaa in ilmuhu uba isdifaaco kii kala gowda ka saaro deetana uu isagoo ku nafisaanba wax la yeelaanba wax yeelo laakiin aanay mushkiladaasi ballaaran oo sida halkan oo kale aanay ilmihii iyo gurigii iyo waalidkii iyo cid kastaba aanay saameyn baa dhici karta. marka bullyingku ilmaha mushkilad aad iyo aad u weyn buu ku hayaa, kalsoonidiisuu dhibayaa, wax akhriskiisa iyo wax qoridiisa iyo iskuulka inuu dhigtay iyo fasalka inuu fadhiyo iska day xataa iskuulka dhan inuu kasoo agwareegu nacaya. marka waxba kama qaban karo qofka waalidka ahi bullyingka iskuulka gudihiisa ka dhacaya, laakiin waxyaabaha ilmahaaga markaad wareysataa sileedii buu ku keenay in ilmaha la bulgarayaanba la dhibo oo caruurta kala dhibaan. waxaa dhici karta dharku xiran yahay iyo qaabka uu labisan yahay, hadduu cunto sii qaato guriga iskuulkan qada lagu soo tusaalahaan kale guriga qada ka sii qaato, waxyaabaha adigu aad isleedahay wad wanaajin kartaa adigoo labiska markaan la hadii nanti xijaabkeedii iyadoo xijaaban qof islaam oo diinteedii akhlaaqdeedii ka muuqato lagu bulgaranay lagu dhibay xijaabkii laga bixin maayo, akhlaaqdeeda iyo diinta xabaarsadaba ka muhiimsan. laakiin waxyaabaha kale aan akhlaaqdii diinta toona waxba u dhibahayn iyadana laga yaabo inay dadka inay ka dhex baxdo amba ilmaha inanka yarba dadka ka dhex baxo waxaa lagu caayay ciyalka yar ku caayaan haddii uu qofku ka biin karo waalidku. taasna waxay ku imanaysaa inaad la sheekaysatay ilmihii, waayo waxaas ma aha wax waalidku arkaya oo de marka hore waalidku kuma diraya ilmihii asagoo wax ka xun yihiin amba wax ka khaldan yihiin, laakiin waa wax yaroo simbal amba funaanad wax ku sawiran yihiin amba funaanad heblaayo inuu ilmahaas hadduu xidhnaan lahaa laga yaabo inuu bulug ka yaraan lahaa. waxyaabaha aan inaga micnaha inoo sameynahay laakiin caruurta dhexdooda micnaha ka sameynaya. taasna waxay ku imanaysaa ilmihiina la sheekaysato iskuulkii markuu ka yimaado aad la hadasho ku tiraahdo xaaladaada ka waran maanta maxaa dhacay, xalga maalinta 21 inaan ku sheegin laakiin uu mararka dambe kuu sheego. marka inaad ka daalinaad maalin kasta wareysato aase barnaamijyo hore ugu celcelinay in ilmaha in la wareysto oo lala hadla muhiim fara badan ayay runtii leedahay, mushkilada fara badanna way ka hortagaysaa. intaa marka laga yimaado oo ah qodobkaas deegaanku keenaya ee guriga iyo iskuulka ka dhalanaya, waa qodobka ugu weyn ee ugu muhiimsan ilmaha waxbarashadiisa iyo iskuulkaba saameyn fara badan ku leh. aanad moodo inay gacanteena runtii ku jirto oo aan wax badan ka caawin karno ama ka bedeli karno. arinta kale aynan inagu gacanta ku haynin laakiin aan xalkeeda raadin karno haddii aan aqoonsano ayaa waxay noqonaysaa ilmaha maskaxdiisa haddii uu jiro mataqaanaa waxyaabaha loo yaqaano learning disorderka learning or language disorderka oo ilma caruurta ku yimaada oo ah mataqaanaa xanuun maskaxeed dhanka caafimaadka ee maskaxdooda ah amba disorder ku jira. kuwo aad u fudud baa jira oo ilmaha aan saameyn lahayn oo dadka iskuulka ka shaqeeya ay arkayaan oo la odhanaya ilmahaaga inta qofka waalidka Soomaaliga loo yeedhay ilmahaaga waxaa ku aada waxbarashada wuxuu u baahan yahay meel gaar ah oo special loo caawiyo, si gaara loo caawiyo oo aad yar fasalku soconayo oo mataqaanaa macalinkiiba uu 2-3 arday uu waqti badan siinayo halkii fasalka 12 arday ama ka badan ay fadhiyeen. waxaad arkaysaa waalid badan oo Soomaali ah oo oranaya ilmahayga miiwaaniyay waa lagu caayaya waxba uma dhinna halka ma tagayo. odaydana ilmahay ku keentay inuu casharkii la dhiganayay fasalkiiba ku adkaado oo ardaydii ka dambeeyo casharka ilmuhu inuu ku adkaado oo muddo ku adkaado oo fasalkii ka dambeeyo oo casharadii laga shaqeynayay ka dambeeyo waxay ku keentaa inuu fasalka naco. sida in badan baa lagu arko oo ay runtii dadka iskuulada ka shaqeeya aad iskuul ka shaqeysaan baad la kulantaad arkaysid. marka waalidka Soomaalida gaar ahaan inta qurba joogta waxaan ugu baaqi lahaa inaanay ceeb ahayn ilmahooga ay ka taliyaan dantooda haddii uu jiro wax disorder oo baahan in ilmaha si gaara loo caawinayo ay u ogolaadaan. tusaale ahaan oo kale mar hore carabka ku dhuftay waxaa jira xanuuno aan aad
u weynin oo aan ilmaha qof waalan qof dhiman qof wuxuu dhimayn doona aan ka dhigayn oo boqolaal kun iyo malaayiin dad ay qabaan. waxa kamid ah dyslexia ma xanuun ilmaha maskaxdiisa wuxuu dhimaya qofka inay maskaxdiisa wuxuu dhiman tahay kaliya ta qofka waxa ku adag akhriska markuu saa wuxuu akhrinayay indhahaagu xarfaa ku dhacan waxaa laga yaabaa xarfi warqada ku wada yaalay inaad aragto sidii iskugu xigeenaadu u akhriyayso. laakiin qofka dyslexia qaba macnaha way ku akhrisku ku adeegayaan xarfi bara arki waayaan xarfuhu isku dhaafdhaafaan hadba qofka sidii u saameyso. ilmaha dyslexia qaba qaab gaara looga qaada imtixaanka, qaab gaara baa wax loogu dhigaa, qaab gaarana looga caawiya. haddii caawimaada uu baahan yahay helana si fudud buu ilmuhu wuxuu bartaa mid dadka ka reebta ama mataqaanaa naafa ka dhigaysa maaha. marka ilmahaaga haddii marka aad u fiirsato aad aragto ilmihii ma dhiirigelintii iskuulka ayaa ka maqan oo waxyaabo uu iskuulkii nacsiinaya ayaa dhacay sida oo deegaanka ka yimi, mise waxaa jira oo ka imanaya ilmaha maskaxdiisa iyo naftiisa oo u baahan oo ah mid caafimaad oo u baahan dhakhtar iyo caawimaad gaara. haddii tahay mid gaar ah oo u baahan caawimaad dhakhtar iyo dad mataqaana specialist ah oo dhanka waxbarashada iyo akhriska iyo disorderadaas ku takhasusay iskuuladu way leeyihiin. wadankiina haddii aabay jirto waxaa laga yaabaa in ilmahaaga aad u qunyari karto oo lugta dhulka intood u dhigto aad caawin karto halkii aad oran lahayd waa saaqid iyo waxba ma akhriyayo fasalkan ma dhaafayo iyo warqada waxaa ku yaala maanadarkeena buugunka horyaala miyaanad akhriyi karin kalaaska afraad baa tahay halkaad oran lahayd inaad tiraa wallaahi ilmahaaga waxaa laga yaabaa inuu caawimaad gaara u baahan yahay. waxyaabaha xalka noqadeen usoo gudogdegnooyin xalka maanaa waxyaabaha xalka noqon karaa ilmahaaba mid maskaxdiisa mushkilad ahaato ama mid deegaanka ka timi ahaato waxaad isweydiisaa mushkilada haysata ilmahaaga adigoo isagala tashanaya oo taladii wax ka siinaya islamarkaana u sharaxaya lana sheekeysanaya xalkiina anadoo keliga gaadhahayn. inkastood waalidkiitood marwalba xalka iyo go-aanka leeda laakiin isagu inuu xalka qayb ka noqdo waxay siinaysaa dhiirigelin waxaana ka saaraysaa maskaxdiisa su-aalo badan in isweydiiyo su-aal maxaa ka khaldan in ilmuhu xalka qayb ka noqdo oo tiraasaysasayeynina macashirkaa kuga adag oo ku marinayaan baana ku dhigayaan walaalkaa waa ku dhigaya amba qofkaa kale ayaa ka caawinaya amba qofkaa caawiya ayaan raadsanayna amba dhakhtarkaa ku caawinaya saysasan yeelina broseska dhakhtarku inoo sheegay baan maraynaa deetana waad taxalinaysaa. marka xalka ilmuhu inuu qayb ka noqdo isagana dhiirigelin weyn oo fiican bay u tahay waalidkana waxay u tahay nafis inuu mataqaanaa ilmihiisii uu asagoo xalka qayb ka yahay oo mataqaanaa wixii xalin karo. sidoo kale waxaa xalka qayb weynka ah inaad macalinka ilmahaaga la hadasho oo aad ka warhayso oo aad macalinka la kulanto islamarkaana xidhiidh la yeelato. ilmahaagu guriga siduu ku yahay iyo fasalka gudihiisa siduu ku yahay waa laba arrimood oo kala duwan. fasalka gudihiisa macalinka iyo ardayda oo la fadhiyo qaabku uga qayb qaato fasalka waxyaabaha ku adag waxyaabaha u jilicsan ee uu si fiican uu ku fiican yahay xiisadaha uu ku fiican yahay meesha raba ilmahaagu in kor looga qaado sida uu macalinku u arko. macalinku waa qof kaloon adiga ahayn oo indho kale ku eegaya marka indhaha aad ku arkaysa ilmahaaga indha aan ahayn qaabka u arkaan waxa weeyaan waa muraayad ka daawan karta ilmahaagu wuxuu u baahan yahay inuu hagaajiyo amba aad adigu u baahan tahay inaad hagaajisid. marka la hadalka macalinka iyo xiriir la yeelashada macalinku ilmahaaga wuxuu u baahnaan way ku sheegaysaa adigana muraayadaad adiga iyo ilmahaaga iska dhex aragtaan ay noqonayso ilmahaagii meesha uu u baahnaa aad kor uga soo qaado adiguna aad kor iskugu qaado waad ka waalid ahaan marmarka qaar. qodobka saddexaad oo xal ah wuxuu noqon karaa ilmahaaga waxaad ka filayso inaad u cadayso amba expectationkaaga aanu mataqaana ilmahaaga asagoo waxbarashadii ku fiican aan xataa dhibaataba qabin oo ilmihii caafimaad maskaxdiisa caafimaad qabto jirkiisa caafimaad qabo waxbarashadii garanaya adiga aad wax u dhigayso oo wax dhibaatay baani haysan
ayaa laga yaabaa ilmahaagu inuu culays fara badan dareemo siduu adiga kuu raali gelin lahaa. Isodhanaya talo hooyada yaa baha waxaasi doonayaan baabaha waxaas doonayaan hooyada waxaasay doonaysaa, macnaa aad heer aad u sareeya mar walbaanad ilmaha ka duuno deetana ilmihii siduu kuu raali gelinaya aanu culays fara badan maskaxdiisa iyo jirhkiisa aan u saarin. Ilmaha waxaad ka rajaynaysa markaad u sheegto waxaa ka dhacaya culayskii wixii uu filayay inuu sameeyo ama wixii uu islahaa waa lagaa filayaa. Tusaale ahaan inaad tiraahdo inaad marba tiraahdo inaad wax kasta ee keentaa wayna saa yeeshaa, wax fiican maaha, laakiin at least expectationkaagu wuu cad yahay oo ilmihii wixii laga rabay meeshaad ka rabto waa u sheegtay. Markaad kusoo duubo waxaad ka doonaysaa adigu amba inuu wada keena ahaado, amba inaan iskuulka unka saaqidino aad yar iska baaso quyarso aad noqdo ha ahaado, amba in mataqaana xirfad aad isla ogtihiin labadiinu inuu hadhow toolo qaato hadduu doonayo duhul sare ku jiro deedna shahaado gaara laga rabo oo shahaadada inuu wada noocaa keena laga doonayo. Macnaha waa inaad expectationkiina amba waxaad rajaynaysaan amba waxaad iska filaysaan aad isla taqaanaan aadan adiguna u wareerin ilmuhuna culays u dareemin, iskuulkiina aanu u nicin haddii uu de wixii aad ka filaysa uu keeni waayo uu nacaya iskuulkii. Qodobka afraad ayaa wuxuu weeyaan in macnaha inaad ogaato marmarka qaarkood ilmuhu inuu iskuulka nacayo, inuu iskuulka ku adkaanayo, inuu iskuulka sanifayo, marmarka qaar ilmuhu inuu kufayo kacayo. Waxay qayb ka tahay in waxbarashada, waxay qayb ka tahay koritaanka ilmuhu uu korayo ee uu jir ahaan iyo maskax ahaan iyo dhaqan ahaan iyo qof ahaanba uu korayo. Marka inaanad macnaha filin mar walba ilmahaagu inuu haado ilaa fasalka hoose dhexe fasalka koowaad iskuulka hoose dhexe ilaa iyo dugsiga sare ama jaamacadda ilmahaagu maalin kasta iskuulka tegayo oo uu dhiirigelintiisu 100% ahaanayso. Inaanad filin sanadada qaar uu iskuulkaba nacayo odhan iskuulka waan ka baxay jaamacadda ma doonayo iyo waxyaaba lamid ah oo mataqaana aad soconto ilmahaagi maxaa ka siyaanba miyuu xanuunsanaya ama iskuulkii waa ku adkaaday. laakiin ay tahay bini'aadanimada macnaha in qofku marmarka qaar wixii ka daalo. sidoo kale waxyaabaha ilmaha saameynta weyn ku yeelan kara asagoo aan maskaxdiisa iyo jirkiisa toona aan ku adkayn inuu iskuulkiisii u dadaalo ayaa iyaduna mid kaloo deegaanka ka imanaysa ay noqonaysaa oo ah in atad guuritaankaagu fara badan yahay amba iskuul bedelkaagu badan yahay oo ilmihii fasalka koowaad ilaa 9 sano kaliyaata in ilmuhu 3 jeer waqtiga iskuulka bedelay 9 sano haddaad eegto maaha wax badan, laakiin ilmaha iyo waxbarashadiisa deganaanshiyihiisa markaad eegto aad iyo aad bay ugu badan tahay. marka haddaad qof guurguur badan amba iskuulka ilmaha bedelo iskuulka hore isqabsadeen amba ka bedelaan amba kala ka bedelaan amba ka fogaadeen amba wixii doonaan keenaan, ilmaha isbedelka deegaanka wax ku baranaya haddii uu bato isbedelkiisu isbedbedelo, ilmahana qaabkiisa waxbarasho iyo heerkiisa waxbarasho iyo jacaylka waxbarashada u hayo iyo saaxiibadu intaba way isbedelayaan, saameyn fara badan ay ku yeelanayaan waana ka muuqanaysaa. marka taalaftigeedii inuu qofku ka taxadiraya wanaagsan. arinta kale iyaduna aadka muhiimka ah oo ilmaha saameyn weyn kula waalidkana saameyn kula waxbarashadana saameynaysa waxa weeyaan saaxiibada ilmuhu haddii yihiin saaxiibo xun oo mataqaanaa iskuulkii ka dhacay oo dee aan iskuulkii markaa aanu arkin muhiimada koowaad, ilmuhuna si kastoo iskuulka ugu fiican yahay asaguna waa ka dhacaya. haddaan iskuulka oo dhan ka wada dhicin wax laga yaabaa muddo inuu ka dhaco. waalidka ayaana shaqadiisa tahay sidii uu ilmaha ugu qancin lahaa inay saaxiibadani xun yihiin asaga oo aan ilmaha dareensanayn inuu dambi sameeyo iskuulkii ka tegay islamarkaana saaxiibo xun raacay, laakiin qaab wanaagsan u maraya oo u sheegaya, dhegeysanaya, una tusaaleynaya oo odhanaya qof kasta saaxiibkii uu noqda saaxiibada waa kuwa iskuulkii bay ka hadheen, laakiin aan ilmihii ka dhigin ilmo xuna noloshii ku guuldaraysto saaxiibo xun raacay. sidoo kale saaxiibku waa muraayada laga arko mustaqbalka ilmaha, mustaqbalka qofka iyo adiga mustaqbalkaaga. qof kastaaba waxaa la yidhahdaa waa isku celceliska 4 saaxiibo mar walba waqtiga la qaato
qaarkay sida ay yihiin. In waxyaabaha disorderska waxbarashada waxaynu ka soo qaadanay dyslexia oo ah mid saameysa akhriska oo keliyata, laakiin hodiga ilmaha waxbarashadiisa saameyn karaa. ilmuhu hadduu uu anxiety ku jira macna dareemayaanbo in mataqaana cabsida iyo warwarka warwar socda uu dareemayo, wixii doona ha keenaan ilmaha waxbarashadiisa aad buu saamaysaa. caruurta waaweyn depressionka amba in isku buuqa aad iyo aad buu saameeyaa. ilmuhu markuu dhalinyaradiina wuu ku dhici karaa. OCD-ga waxaa la yidhaahdaa ayaa isaguna ka mid ah. waxyaabahaasoo dhan waa wax qofka waalidka ahi asagoon uba baahnay inuu kala yaqaano disorderada iyo waxyaabaha ku dhaca ilmihiisa. sidaa markuu eego haddii ilmahan dhiirigelintoo keliyaati ay ka maqan tahay oo ilmihii iskuulkii uu ka caajisayaanba mataqaana dhiirigelintiisa ay hoos u dhacday oo waxyaabaha keenay waxyaaba deegaanka ka yimi ay yihiin wuu xallin karaa, waalidkuna wuu arkayaa. wixii intaa ka baxsanna waxa wanaagsan inuu macalinka la kulmo, maamulka iskuulka la kulmo, islamarkaana uu dhakhtar cilmi nafsi amba dhanka maskaxda oo caruurta quseeya oo mar walba inta badan iskuulku way soo gudbiyaan ilmahan waxyaabaha uga shakisan yihiin inuu waxbarashadiisa hoos u dhigayo, islamarkaana uu qofku processka raaco. haddii uu qofku degan yahay meel aan dhakhtarada noocaasi joogina, ilmihiisa uu mataqaanaa si naxariis leh ula dhaqmo, oo cagta u dhigo, oo aan mataqaanaa waa qof saaqido oo halkaa aan dhaafahayn aan la gurin la yidhaahdo ilmahani saaqid ma waxa laga yaabaa inuu baahan yahay caawimaad dheeraada, taasina aanu helahayn. laakiin naxariis iyo qunyar socod loogu bedelo iyo hadba wixii la awoodo. barnaamijkeena maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.